السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا برو عالمك حلقة ديسي سيداد تاسو aan maanta ku eegayno wadanka Australia waxaan ahay daadiyihiin bishaar hore balse daawadayaal marka ugu horeyso ana abaarno sida uu eegyahay calanka wadankaasi marada calanka wadanka Australia waa mid buluug ah si guud waxa geesta uga dhagan calanka boqortooyada Ingiriiska ama loo yaqaan United Kingdom taas oo muujinaysa in wadanka Australia uu ahaa dal uu Ingiriisku guumeysto ama guumeysan jiray dhulka Australia waa dhul aad u baaxad weyn oo qaarad ah kaligeed balse sidoo kale waa jasiirad oo waxa gabi ahaanba ku wareegsan bad taas oo ka dhigan in aysan wax dal ah xuduud la lahayn wadanka Australia waxa uu u kala qaybsan yahay hab maamul goboleedyaduna waxay ka kooban yihiin 6 maamul goboleed sidoo kale Australia waxay kor joogtaysaa ama kor ka xukuntaa 9 jasiiradood oo kale oo yaryar kuwaas oo 3 kamid ah ay ku yaalaan gudaha qaaradda Australia 6 kamidana ay ku yaalaan dhulal shisheeye Australia waa wadan boqolkiiba 35 saxara ah waana mid kamid ah qaaradaha adduunka ugu angegan qalalnaanshaha dhulka ayaa waxay ku qasabtay boqolkiiba 85 bulshada dalkaasi inay ku noolaadaan masaafo 50 kiiloomitir u jirta xeebaha dalkaasi guud ahaan dalka oo idil hase ahaatee taasi kama dhigno inuu dalkana wada qalalan yahay oo waxa laga helaa dhirta noocyadeeda kala duwan iyo kaymo waaweyn halkaas oo ay ku nool yihiin kuwa ugu halista badan cayayaanada iyo baalada kale wadankan ayaa waxa laga helaa xayawaano aan laga helin meel kale oo adduunka kamid ah waxaana kamid ah xayawaanka kangaroo midka koala iyo xayawaanada la midka ah Australia waa wadan aad loogu soo dalxiis tago waxaana looga kala yimaadaa daafaha caalamka si ay dadku u arkaan xeebaheeda quruxda badan Australia waa wadan ay ku nool yihiin qiyaastii dad 23 milyan oo qof ka hor jiritaankiisii wuxuu wadankan ahaa meel uu Ingiriisku ku soo daabulo maxaabiistiisii lagu xukumay wadankiisa ka soo guumeysiga Ingiriisku ma ahayn dalkii ugu horeeyay ee gaara qaaradda Australia taas bedelkeeda dalka Holland ayaa ahaa dalkii ugu horeeyay ee sahmiya qaaradan dadka ugu badan ee ku nool Australia waa dadka ka soo farcamay guumeystii Ingiriiska waxaana kaligood loo xisaabshay inay gaarayaan 85% dadka ku nool wadankaas dadka kale ee ku nool Australia waxa kamid ah dadka ka yimaada qaaradda Aasiya sida Shiinayska Hindiyaanka iyo dadka wadamada la midka ah markii intaas oo dhan laga yimaado waxa jira dad asal ahaan u deganaa dhulkan oo lagu magacaabo Aborigines balse waa dad tiradooda aad u yarahay saaxiibada Australia waxay xagga ganacsiga aad ula macaamishaa dalalka Shiinaha iyo Hindiya dadyo badan oo ka kala yimid dalalkan waxay ku nool yihiin gudaha wadanka Australia markaan eegno saaxiibka ugu dhow ee Australia wuxuu noqonayaa dalka New Zealand labadan wadan oo ayaa ah sida walaalo oo kale kuwaas oo wadaaga dhaqan af iyo guumeysiga saaxiibka kale oo isna aad ka ugu dhow wadanka Australia ayaa waxa noqonayaa dalka Mareykanka ku xirnaa baro caalamka waxa inoogu xigi doona dalka Austria